gobolladatan bari nugaal iyo mudug annagoo sool iyo sanad afkooda ku hadlayna saddex masalo mudug inaynu noqono saddex masalo mudug inaynu noqono yani waxba soo dhuundhuumane meel la wada leeyahay harti leeyahay oo daarood leeyahay soomaali leedahay oo aynu taladeeda ama madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen iyo wasiir iyo khayraadkeeda aynuu gudboonahay meel aynu ku kala tagno si cad soomaalidu inaynagu ogaato aynu ku kala tagno oo layna wadaado inaynu kala guuro gobollada iyo deegaanada iyada aad idna noola baxdaan anana aynu ka soo guuro aynu halka aynu kusku macasalaamin ama aanu somaliland aadno ama aanu maamulkan samaysano ama aanu sideeda ku jirnay inaynu kala guuro inaynu isku dullo garowe ilaa magaalo madaxaynu wada samaysano wada dhisano dhaqaalaheeda iyo adduunkeeda iyo wax kastoo galay waynaga dhexeeyaa meel yihiidug isimada iyo waxgaradka iyo siyaasiyiinta reer puntland oo majeerteen iyo saasaan ku sugaynaa waxaa raacda dhulbaanta waxa uu matala madaxweyne axmed ciidni cismaan axmed karaash baa matala meel kastaba ha joogo madaxweyne guudna waa madaxweyne gaar ku-xigeenna wuuya laakiin beesha awood qaybsiga siciid harti ayuu ku fadhiyaa haddii sidii dhooba daaran xoog loola yimaado ku kala maqnaan mayno wixii dhinta iyo wixii dhaawacma iyo wixii wax gaaraan sidii walaalkan warsangare ka yeeli mayno oo walla ah inaanan ka yeelin garow waynu wada naallaa guryaheena iyo xoolaheena kuwa yaal bixin shishadaynu ka marraa sokadaad ka soo martaan waynu wada degannahay waxaanu ku baaqaynaa oo leenahay oo ku celcelinaynaa war walaalayaal isku keendirinee oo yayna isdilin oo yaan cadow nagu wiirsan oo yaynan kala dhiman oo yaan wixii hore oo aadna badeen oo gobolka sool aad badeen iyo sanaag mar labaad wax kaloo aadna badeen yeeli jirin badida markaan ka hadlay waxaa gacangelintii aad u gacangeliseen maamulka somaliland gobolka sool aad u gacangeliseen maalin meel uga guurtay waad ogle sidaa ku hari mayno kuna dhiman mayno haddii ayna dilin waxaanu ku baaqaynaa war waxaa la yidhi hadhuub dhiman iyo hadhuub buuxa haddii laisku dhufto horta keebaa qubta hadhuubka buuxaa qubta war garow iyo lascaanood baa weynay oo lascaanood baa qurux badnay oo lascaanood baa ballanay maantana waad aragtaan garowe inay la matan london ciise maxamed waxaa lagu baaqaya islaan ciise war garow ayaa ninaan ka tegayaa beri yuu talin beri markuu ku dhibaato dhex dhiga yuu talin hadduu ka tegayo taladeeda waa wadaagnaa dhaqaalaheeda waa wadaagnaa dhaqankeeda waa wadaagnaa dhiiggeeda waa wadaagnaa isku dhiig baynu nahay axmed cilmiyuu u muuqan deri den hadduu madaxweyne ka yahay meesha waa ka madaxweyne ku-xigeen wuxuu ka galaanu ka gallaa hadduuna kaafiyo waayo annaga inoo taallaa iyo baarlamaanka meesha noogu jira markaasana waa iyo kor isugu gudba laakiin hadduuna kaafiyo kana kaafiya mana eryi kartaan loomana codayn karo baarlamaan lacag la siiyaa nama khuseeyo halkaasaanu ka eegaynaa maantana waad ogtiin wax walba waxay naga dhexeeyey hore noo dhexeeyey waad ogtiin yaa wixii wax inoo raacay puntlandna wada leeyahay iyo puntlandna ku kala tagno dalka iska day dalka waynu wadaagnaa idinba waa iman kartaan kan haddaa kan bixisan kiinuma bixisan laakiin ama waynu wada yeelayna waa ku kala tegaynaa xaqiiqdu saa weeye axmedna hadduu xiyo hadduu sida marbeeshir annaga dooranay oo idinkaa nala doortay madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen booskii madaxweyne ku-xigeen buu noo fadhiyaa wuu noo joogaa wasiirada wasiir aanu ansixin oo dhulbaanti lama qaadananaba wasiir dhulbaanto aanu ansixin isagu ilasaa meesha noo maba qaadanano oo maxaanu qaadanayna deni wasiirada ha magacaabo majaarteen bismi illaahi araxmaani iraxiim bismi illaahi araxmaani iraxiim bismi illaahi araxmaani iraxiim waa nabaadina xidhkayga adoo tix raacaya ragga diinta hoyga u ah iyo hadal dhulbahanta ah adoo masalada tix raacaya horta nabaadina xidhka dhiganaya halka waxaanu ku shiraynaa oo asxaabtadda ku qabanaynaa beelweynta dhulbahante waxaanu ka hadlaynaa arrimaha puntland ka taagan maanta baanu ka hadlaynaa sidaa asxaabigeena ka sheekeeyey puntland waa hal aynu wada lahayn hashaa waynu qalannay waa hilbaheedaynu qaybsannay miserfalow kuriskii baad qaadateen anna garbahaan qaatay
hartida kalena inta kale u qaybsada kuriskiina weli hartida kale oo idinku haysta ma aydan arag hartida kale baa waxaad ku haysataan hilbahoodii caqligaasi horta caqli saliim ah maaha maalin walba cabdilaahi yuusuf daradii wiil yar baad noo keenayseen waxaa ugu dacweynaa caddana wuxuu sameeyey waa noogay intaa waxaanu ugu dulqaadanaynay cadkayagii garba aha aanu lahayn waad kuriskiina doonaysa inaad ku darsataan maanta waanu diidnay waxaanuna halka u nimi maanta oo saxaafadda u qabanaynaa 48 saacadood baanu dani u qabanaynaa miteerteelka kale annagu eeduma haysano laakiin isimada iyo waxgaradka iyo oqaashoodu wiilasha yaryar ee maalin walba ay noo keenaan ee yidhahdaan madaxweyne ka dhiga oo sharciga ku tumanaya oo wuxuu doona ku samaynaya beelihii daawada buntland dhistay baad ka qaban weydeen saasaad isimada iyo oqaasha iyo waxgaradka ee miteerteelnadi kiis ku leeyahay laakiin annagu madaxin dadweynaha waxaanu idiin sheegaynaa haddaanu duubahantannahay annagu waxba kuma lihin hadallada sharafteedu waxay ku jirtaa xabadda masakiyo dawiish nagala tegay sheema iyo laan shanqashiga colaadda baa waqay sharaf ka dheefaa intaan shaal hagoogtaan raashiiska ii diran xeecayn wuxuu ku dalaaqan yahay labaa qabaadarowna waxay naga dalaaqan yahay 48 saacadood baanu u qabanaynaa deni maslaxaad maanta uma jeedno kana wada hadli mayno maalin walba waxaynu ku wada hadlayna tagada annagu aanu leenahay war dastuur baa naga dhexeeya kaayada madaxweyne ku-xigeenka dastuurka qodobadiisuu leeyahay isna qodobadiisuu leeyahay ma waxaa caqliga kaanaa agtaa saaraya kaygana waa isticmaalayaa ma suuroobayso 48 saacadood ismada waa maqashiinaynaa miteerteen oqaasha waa maqashiinaynaa waxgaradka waa maqashiinaynaa mutacalimiinta waanu maqashiinaynaa haddaan dani xilka kaga deginaysa casilin garawa waxaan dhiigu sida daadka u rogmale ma jirto wadahadal maanta aynu gelayno maslaxada aynu kala yeelanayno waayo annagoo dhibaato daraawiishayda xoreyno idinka laftigiina baad waxaad doontaan nagula kacdeen waa miteerteenow qabsada wiilka yarkaa kuwa yareesoo dhaandhamadeerani kamaanu yeelin war kan qabsada maanta xilkale ka dejiya ninaynu u dhanahayoo reer buntlaana oo aynu ku aamino tagada baa la geynayaa hadalka intaasaan kaga baxay waa bilaahi towfiiq assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu 20 sano waa baryanay baryadaba ma hadhin 20 sano waanu baryanay waxaanu lahayn war waxa qolo waxbay leedahay inoo daaye reerahaasi waa diideen reer hibeelo hartiga ka midi marka waxa weeyaan haddii ninku aad waaniso oo diido jawaabta uu leeyahay baa la siiyaa axmed garaash waa nin biyihii reer binu quraysheeda waa nin biyihii reer binu haashina waa nin biyihii caqiil binu daaliba waa nin biyihii jabartiya waa nin siidalkii daarooda waa nin siidalkii hartiya waa nin siciid hartiya waa nin sisore habarwaaya weeyaan meel dambe horta nin fadhiya maaha waxa weeyaan ninowna ha isku dayin cadka siciid harti leeyahay inaad cunto haddaba ninaad ka cuni kartaana idin lama joogo axmed garaash madaxweyne ku-xigeen baa lagu sheegayaa 120 madaxweyne weeye oo 120 madaxweyne weeye ninayhu joogi weyde oo joogsan weyde wuxuu yidhi ninkii gooyaalbaha la qaatay haddaan qayl la kala goosan gaydhaan la maalay haddaan giilo la horseexan gaadiid cadhoolaha haddaan caynka lagu gejin aabbahay gabay noqoy haddaan nabadi guuyo ilaahay nabarkii waxaan ku gar axmed garaash ninuu yahay inuu muuqdaa intaa waanu xishoon anagu reer dagaal baaba nala yidhaahdaa reer dagaali taagan baaba nala yidhaahdaa nabadda ma rabno
nabadda dooni mayno xaaladda maanta taagan oo axmed garaash lagu hayana kuwa ka miciis qaadanaya maahin kuwa dhabarka lagu sidana allah ka dhigay caloosha kuwa ku jiraa waa ogyihin xaaladda axmed garaash lagu hayo malanka duudsi qaadanano puntland waa burburtay dastuurkeedii waa la bedelay dad baa ku tuntay wax qaybteedii waa laysku xaqiray waa laysu aqoonsan waayey iyada intaasaan kaga baxay waxaan daba joogaa 3 eray oo ay puntland ku dhisan tahay oo aan leeyahay ilaa aan la soo noqdo inaanan wax qayb dambe aanan ka gelin number 1 nugaal waxaa la yidhaahdo nugaal marka aan ku heshiino nin waliba inta uu ka leeyahay baynu wax ku wada qaybsanaynaa anagu dastuur dambe wax ku qaybsan mayno waa number 1 magaca darwiishna waa raba oo ma leh lagama leh darwiish anaa leh dib dambena uguma abtirsan karo nin ka soo jeeda beesha ma jeerteen darwiish anaa leh saddexdaa midda kale waa xadka weye halka uu deni ku raaxaysto oo axmed garaash leeyahay ka waxayn kufurtu billaahi waa laysugu tegaya amar baana laysugu tegaya waana xadka dhulbaante nin walowbana ogow waa laysugu tegaya waxna lagu qaybsan maayo ilaa daartaa laysugu tago wax dambe oo la qaybsanaya ma jirto go'aanna waxaan ku ridaynaa oo aanu isku raacsannahay 100 wiil baa ku filan garow way faacirtay waa dherigtay waxay noqotay meel lagu raaxaysto 100 wiil gaajaysan baa adeerta caleey haddaad moodeen inaanu wax weynu soo dirayno 100 baa ku filan 100 aanu xuway oo aanu go'aankeeda ku jiro oo aanu naftooda iyo maalkooda rabin oo aanu taariikh kala baxno darwiish magac kula soo noqon sooliga sanaag iyo cayninka yidhina sooliga sanaag iyo cayna dib dambe maca federaal uga dulqaadan mayno inay noqdaan meel lagu gorgortamo aan dastuurka ku jirin hadalladan odhan lahayo raggii horaa yidhi axmed garaash waa madaxweyne dhulbahante maaha ku xidheen annagu madaxweyne loo yahay madaxweyne ma ridi karo qabiilo kuma soo xadgudbi karto xadka aad leedihiin soo dhaafinina inkastoo dadkaas ee dumarka kala gudbaya ay idinku jiraan waxaan leeyahay ninkii la odhan jiray maxamuud cali shire hadalkiisii baa muuqda markaan in yar ka gaadho waxaa u yimi garaadka dhulbaante iyo boqorka ma jeerteen garaadkii dhulbaantuu salaamay war maxay ku dhacday buu yidhi wuxuu nina hooyaa ii keentay nina aabbaa ii keenay anigu nin baqaya mehi ilaahay baan ka baqayaa garowana waa imanayaa ballanna waxaan ku qaadayaa haddaan qaladka lee kala joojin oo dadku istixgelin oo ninba ninka uu nin waliba shaqadiisa uusan garan ballan waxaan ku qaadaa garowe waa inay garowe dhismaan baan ballan ku qaadayaa haddaan raggii rabbi ka waayin war hooy markii horena dowladdii hore idinkaa mucaaradkooda ugu horreeyey kana idinkaa mucaaraday mucaaradkiina aad dadka dowladaha mucaaradaysaan oo madaxweyneyaasha aad mucaaradaysaan annagu waa ka yaabanahay marka hore sideen wuxuu yidhi Somaliland Puntland federaalku Puntland buuhoodle iyo cayn iyo baran Somaliland baa laga fidiyey oo loo gacan dhaf annaguna waxaan u naqaanaa ay Puntland ama meel daarood ama meel harti oo harti ka taliyo madaxweynayaasha marba madaxweynaha soo qabanayay weli madaxweyne ku hadla yiraahda Somaliland baa ka talisa buuhoodle iyo cayn maanta koorta waa maqan iyo baran waxa weeye dagaal baa ka dhacay denigu waa maqnaa ma yahay isagu waxa weeye meel buu ku maqnaa inuu dhakhtar ku jiray ma garanayo markii lagu dagaalamay malaayiinka qof ku dhimatay oo 2 sanadood lagu dagaalamayay waxaan ma yahay ma joogin
inuu hurdo dhakhtar ku maqaaban maayo taasi waa taa marka baaqyadii hore uun gudaba jooga baaq waxaan u diraynaa ma jeerteen haddaad kula socotaanna maxamed hartiyow haddaad kula socotaan danina waa mahadsantihiin wuxuu yidhi haddii saa la yeelana waa alxamdulilah haddii la waayana waa rabbilcaalamiin haddii aadi kula soconna sidii uu garaadku markii dhaweyd sheegay 48 saac jawaabtiinna aanu hello taasi waa tama jeerteen dalkan ka hadlaya meesha daaruhu ku yaalliin sarahan dhaadheer ee mukayfku ku xidhan yahay iyo dhalooyinku waa meeshu in cabdulla xasan lahaa dhulbahanta ku dhammaadoo lahaa dooxadii garoowe wixii nalagu dooxaayey waxay doob caddaydii wadhnayd bixin duleedkeeda may waxa yaalla lafahayagii halka daaruhu ka dhisan yihiin haddii xabadii dhacdana dhulbahantaana leh taasi waa taa waxa timi ta dawladda haddii nidaam la waayo iyo sharci wax wada dhisashada soomaaliya oo dhan baa oginayna wax wada dhisana innagoo su istira axmed garaash waa madaxweyne dhulbahante annaga isagaa madaxweyne nooca ninkuu doona isagaa bedelaya ninkuu doonana isagaa keenaya dani madaxweyne annaga doonooma ahee waxbaan isku darsanna haddii sharci la waayo annaga oo dhulbahanta isagoo keligiisu harti geela ka dhaca oo riyo uga tegi wallaahi waxaanan uga tegayn daara aanan ka dhigayn gawaan waxa la yidhi bakaylow haddaan koodud kugu xumay anaga kadaloobiguma xuma annaga waxaanu dhowranaaba ma jirto haddii aydin nabadgelyada dan idinku jirin iyo wada dhalashada iyo tulliimada iyo wax wadaaggu dee annana dan inooguma jirto gobollada tan bari nugaal iyo mudug annagoo sool iyo sanad afkooda ku hadlayna saddex masalo mudug inaynu noqono saddex masalo mudug inaynu noqono iyo naxbas u dhuundhuumane meel la wada leeyahay harti leeyahay oo daarood leeyahay soomaali leedahay oo aynu taladeeda ama madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen iyo wasiir iyo khayraadkeeda aynuu gudboonahay meel aynu ku kala tagno si cad soomaalidu inaynagu ogaato aynu ku kala tagno oo layna ogaado inaynu kala guuro gobollada iyo deegaanada iyada aad idna noola baxdaan anana aynu ka soo guuro aynu halka aynu kusku macasalaamin ama aanu somaliland aadno ama aanu maamulkan samaysano ama aanu sideeda ku jirne inaynu kala guuro inaynu isku dilno garoowe ilaa magaalo madaxaynu wada samaysano wada dhisano dhaqaalaheeda iyo adduunkeeda iyo wax kastoo galay waynaga dhexeeyaa meel yihiin isimada iyo waxgaradka iyo siyaasiyiinta reer puntland oo majeerteen iyo saasaan ku sugaynaa waxaa raacda dhulbahanta waxa uu matala madaxweyne axmed ciidni cismaan axmed karaash baa matala meel kastaba ha joogo madaxweyne guudna waa madaxweyne gaar ku-xigeenna wuuya laakiin beesha awood qaybsiga siciid harti ayuu ku fadhiyaa haddii sidii dhooba daaran xoog loola yimaado ku kala maqnaan mayno wixii dhinta iyo wixii dhaawacma iyo wixii wax gaaraan sidii walaalkan warsangare ka yeeli mayno oo walla ah inaanan ka yeelin garow waynu wada naallaa guryaheena iyo xoolaheena kuwa yaal bixin shishadaynu ka marraa sokadaad ka soo martaan waynu wada degannahay waxaanu ku baaqaynaa oo leenahay oo ku celcelinaynaa war walaalayaal isku keendirinee oo yayna isdilin oo yaan cadow nagu wiirsan oo yaynan kala dhiman oo yaan wixii hore aadna badeen oo gobolka sool aad badeen iyo sanaag mar labaad wax kaloo aadna badeen yeeli jirin badida markaan ka hadlay waxa gacangelintii aad u gacangeliseen maamulka somaliland gobolka sool aad u gacangeliseen maalin meel uga guurtay waad ogne sidaa ku hari mayno kuna dhiman mayno haddii ayna dilin waxaanu ku baaqaynaa war waxaa la yidhi hadhuu dhiman iyo hadhuu buuxa haddii laisku dhufto horta keebaa qubta hadhuufka buuxaa qubta war garow iyo lascaanood baa weynay oo lascaanood baa qurux badnay oo lascaanood baa ballanay maantana waad aragtaan garowe inay la mita london ciise maxamed waxaa ugu baaqaya islaam ciise war garow ayaa ninaan ka tegayaa beri yuu talin beri markuu ku dhibaato dhex dhiga yuu talin hadduu ka tegayo
taladeeda waa wadaagnaa dhaqaalaheeda waa wadaagnaa dhaqankeeda waa wadaagnaa dhiiggeeda waa wadaagnaa isku dhiig baynu nahay axmed cilmiyuu u muuqan deri den hadduu madaxweyne ka yahay meesha waa ka madaxweyne ku-xigeen wuxuu ka galaanu ka galnaa hadduu nakaafiyo waayo annaga inoo taallaa iyo baarlamaanka meesha noogu jira markaasana waa iyo kor isugu gudba laakiin hadduu nakaafiyo ka nakaafiya mana eryi kartaan loomana codayn karo baarlamaan lacag la siiyaa nama khuseeyo halkaasaanu ka eegaynaa maantana waad ogtiin wax walba waxay naga dhexeeyey hore noo dhexeeyey waad ogtiin yaa wixii wax inoo raacay puntlandna wada leeyahay iyo puntland ku kala tagno dalka iska day dalka waynu wadaagnaa idinba waa iman kartaan kan haddaa kan bixisan kiinu ma bixisan laakiin ama waynu wada yeelaan oo ku kala tegaynaa xaqiiqdu saa weeye axmedna hadduu xiyo hadduu seenir bashir annaga dooranay idinkaa nala doortay madaxweyne ku-xigeen booskii madaxweyne ku-xigeen buu noo fadhiyaa wuu noo joogaa wasiirada wasiir aanu ansixin oo dhulbaanti mama qaadananaba wasiir dhulbaanto aanu ansixin isagu ilaa meesha noo mama qaadanano maxaanu qaadanayna deni wasiirada ha magacaabo ma jarteen بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وانا بدينا حركيga adoo tixraacaya ragga diinta hoyga u ah iyo hadalkii baahanta ah adoo masalada tixraacaya loo nabadin xidka dhiganaya halka waxaan ku shiraynaa asxaabada ku qabanayna beelweynta baahante waxaan ka hadlaynaa arrimaha Puntland ka taagan maanta baan ka hadlaynaa sida asxaabada ka sheekeeyay Puntland waa hal aynu wada lahayn hashaa waynu qalanay hilbeedaynu qaybsannay misalfana kuriskiinaad qaadateen anna garbaan qaatay hartida kalena inta kale u qaybsaday kuriskiina weli hartida kale oo idinku haysta ma aydan arag hartida kale baa waxaad ku haysataan hilbahoodii caqligaasi horta caqli saliim ah ma aha maalin walba cabdilaahi yuusuf dabadii wiil yar baad noo keenayseen waxaa igu dacweynaa caddana wuxuu sameeyey waa noogeen intaa waxaanu ugu dulqaadanaynay cadkayagii garba aha aanu lahayn baad kuriskiina doonaysa inaad ku darsataan maanta waanu diidnay waxaanu halka u nimi maanta oo saxaafadda u qabanaynaa 48 saacadood baanu dali u qabanaynaa miteerteenka kale annagu eedu ma haysano laakiin isimada iyo waxgaradka iyo oqaashoodu wiilasha yaryar ee maalin walba ay noo keenaan ee yidhahdaan madaxweyne ka dhiga oo sharciga ku tumanaya oo wuxuu doona ku samaynaya beelihii daawada Puntland dhistay baad ka qaban weydeen saasaad isimada iyo oqaasha iyo waxgaradka miteerteenadii kiis ku leeyahay laakiin annagu madaxin dadweynaha waxaanu idiin sheegaynaa haddaanu baahantanahay annagu waxba kuma lihin hadallada sharafteedu waxay ku jirtaa xabadda masakiyo dawiish nagala tegay sheema iyo laan shanqashiga colaadda baa waqay sharaf ka dheefaa intaan shaal hagoogtaan raashiiska ii diran xeeacaygu wuxuu ku dalaaqan yahay labaa qabaalarowna waxay uga dalaaqan yahay 48 saacadood baanu u qabanaynaa deli maslaxaad maanta uma jeedno kana wada hadli mayno maalin walba waxaynu ku wada hadlayna tagada annagu aanu leenahay war dastuur baa naga dhexeeya kaayada madaxweyne ku-xigeenka dastuurka qodobadiisuu leeyahay isna qodobadiisuu leeyahay ma waxaa caqliga kaagaa agtaa saaraya kaygana waa isticmaalayaa ma suuroobayso 48 saacadood ismada waa maqashiinaynaa miteerteen oqaasa waa maqashiinaynaa waxgaradka waa maqashiinaynaa mutacalimiinta waanu maqashiinaynaa haddaan dani xilka kaga deginaysa casilin garawa waxaan dhiigu sida daadka u rogmana ma jirto
wadahadal maanta aynu gelayno maslaxada aynu kala yeelanayno waayo annagoo dhibaato daraawiishayda xoreyno idinka laftigiina baad waxaad doontaan nagula kacdeen waa miteerteenow qabsada wiilka yarkaa kuwa yareesoo dhaandhamadeeradi kamaanu yeelin war kan qabsada maanta xilkale ka dejiya ninaynu u dhannahay oo reer buntlaana oo aynu ku aamino tagada baa la geynayaa hadalka intaasaan kaga baxay waa bilaahi tawfiiq assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu 20 sano waa baryanay baryadaba ma hadhin 20 sano waanu baryanay waxaanu lahayn war waxa qolo waxbay leedahay inoo daaye reerahaasi waa diideen reer hebel hartiga ka midi marka waxa weeyaan haddii ninku aad waaniso oo diido jawaabta uu leeyahay baa la siiyaa axmed garaash waa nin biyihii reer binu quraysheeda waa nin biyihii reer binu haashina waa nin biyihii caqiil binu daaliba waa nin biyihii jabartiya waa nin siidalkii daarooda waa nin siidalkii hartiya waa nin siciid hartiya waa nin susoore habarwaaya weeyaan meel dambe horta nin fadhiya maaha waxa weeyaan ninowna ha isku dayin cadka siciid harti leeyahay inaad cunto haddaba ninaad ka cuni kartaana idin lama joogo axmed garaash madaxweyne ku-xigeen baa lagu sheegayaa 120 madaxweyne weeye oo 120 madaxweyne weeye ninayhu joogi weyde oo joogsan weyde wuxuu yidhi ninkii gooyaalbaha la qaatay haddaan qayl la kala goosan gaydhaa la maalay haddaan giilo la horseexan gaadiid cadhoolaha haddaan caynka lagu gejin aabbahay gobay noqoy haddaan nabadi guuyo ilaahay nuurka waxaan ku gar axmed garaash ninuu yahay inuu muuqdaa intaa waanu xishoon anagu reer dagaal baaba nala yidhaahdaa reer dagaal taagan baaba nala yidhaahdaa nabadda ma rabno nabadda dooni mayno xaaladda maanta taagan oo axmed garaash lagu hayana kuwa ka miciis qaadanaya maahin kuwa dhabarka lagu sidana allah ka dhigay caloosha kuwa ku jiraa waa ogyihin xaaladda axmed garaash lagu hayo malanka duudsi qaadanano buntland waa burburtay dastuurkeedii waa la bedelay dad baa ku tuntay wax qaybteedii waa laysku xaqiray waa laysu aqoonsan waayey iyada intaasaan kaga baxay waxaan daba joogaa 3 eray oo ay buntland ku dhisan tahay oo aan leeyahay ilaa aan la soo noqdo inaanan wax qayb dambe aanan ka gelin number 1 nugaal waxa la yidhaahdo nugaal marka aan ku heshiino nin waliba inta uu ka leeyahay baynu wax ku wada qaybsanaynaa anagu dastuur dambe wax ku qaybsan mayno waa number 1 magaca darwiishna waa raba oo ma leh lagama leh darwiish anaa leh dib dambena uguma abtirsan karo nin ka soo jeeda beesha ma jeerteen darwiish anaa leh saddexdaa midda kale waa xadka weye halka uu deni ku raaxaysto oo axmed garaash leeyahay ka waxayn kufurtu billaahi waa laysugu tegaya amar baana laysugu tegaya waana xadka dhulbaante nin walowbana ogow waa laysugu tegaya waxna lagu qaybsan maayo ilaa daartaa laysugu tago wax dambe oo la qaybsanaya ma jirto go-aanna waxaan ku ridaynaa oo aanu isku raacsannahay 100 wiil baa ku filan garow waayo way faacertay waa dheregtay waxay noqotay meel lagu raaxaysto 100 wiil gaajaysan baa adeerto calayhi haddaad moodeen inaanu wax weynu soo dirayno 100 baa ku filan 100 aanu xuway oo aanu go-aankeeda ku jiro oo aanu naftooda iyo maalkoodaba rabin oo aanu taariikh kala baxno darwiish magaca kula soo noqono sool iyo sanaag iyo cayn ninka yidhina sool iyo sanaag iyo caynna dib dambe maca federaal uga dulqaadan mayno inay noqdaan meel lagu gorgortamo aan dastuurka ku jirin hadalladan odhan lahaayoo dhan raggii horaa yidhi axmed garaash waa madaxweyne dhulbahante ma aha ku xidheen annagu madaxweyne loo yahay madaxweyne ma ridi karo qabiilo kuma soo xadgudbi karto xadka aad leedihiin soo dhaafinina inkastoo dadkaas ee dumarka kala gudbaya ay idinku jiraan waxaan leeyahay
ninkii la odhan jiray maxamuud cali shire hadalkiisii baa muuqda markaan in yar ka gaadho waxaa u yimi garaadka dhulbaante iyo boqorka majeerteen garaadkii dhulbaantuu salaamay war maxay ku dhacday buu yidhi wuxuu nina hooyaa ii keentay nina aabbaa ii keenay anigu nin baqaya mehi ilaahay baan ka baqayaa garowana waa imanayaa ballanna waxaan ku qaadayaa haddaan qaladka lee kala joojin oo dadku isticgelin